kulanti wacan oo wanaagsan daawadyaal ahaantii meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka nabaad oo haadahan oo kale aad ka daawataan telefishinka astaan. barnaamijka maanta haddii aabaha awoodiis la ogolaado waxaynu ku faaqidi doonaa saameynta isbeddelka cimilada ku yeeshay wax soo saarka dalagga. waxaa marti u ah ustaad dhaqane rooble xalane oo ka tirsan macadka deegaanka iyo cimilada ee jaamacadda simad. ustaad kusoo dhawow telefishinka astaan gaar ahaan barnaamijka nabaad. ustaadii aad u mahadsan tahay waan dhowahay. waxaad maanta inoo soo doortay ciwaan aad muhiim u ah. waxaan rajaynayaa insha allah intuu ciwaan ku socdo inaan wax badan oo muhiima aan isla faaqidi doono. aad u mahadsan tahay. waa dhawa ustaad dabcan marka laga hadlayo isbeddelka cimiladu waa wax inta badan saameeyey guud ahaan qaaradda Afrika, si gaar ah innaga iyo wadamada dariskeena ahna wayna saameysay. cilmi baarisyo fara badan waa laga sameeyey. Soomaalidu waxay ku tiirsan tahay xoolaha iyo beeraha iyo kalluunka inta ugu badan. marka laga tago kalluunka labada kaleba waa saameeyey. marka bal waxaad noo sharaxdaa xiriirka ka dhexeeya dalag iyo isbeddel cimilo. ustaadii aad u mahadsan tahay. waa su-aal muhiim ah. markaa fiirisid isbeddelka cimilada ama climate change waxaan dhahno, waxaa laga yaabaa horta fahamkeena waxa waye su-aashaada waa ku keeni doonaa. fahamkeena horta markii isbeddel cimilo laga hadlo, yani qofka waxaa kusoo dhacayo in geeda la abuuro. yani climateka horta dadkii ma ka dhaadhacsan yahay isbeddelkan cimilada, dadkii ma ka dhaadhacsan yahay horta su-aasha taagan waay. marka climate change-ga waxaa lagu cabiraa caalamka maantay temperature change, mataqaanaaye waxaa la dhahaa carbon emissions, greenhouse gas iyo waxyaabaha lamidka kaa dhex galo waxaan rabaa inaad af Soomaaliyeyso tusaale greenhouse greenhouse gas. okay waxa waaye yani moogtahay Soomaaliga cilmigan wuu cusub yahay. cilmigan wuu cusub yahay gadaal Soomaaligana mataqaanaaye yani lama horumarin kadib markii koowaad oo la qoray, xitaa second version looma sameyno, mar labaad yani laguma noqon. marka hadda sideedan u isticmaalnayo waxaan dhahnaa adiga waa haddii aan greenhouse gaskan yani tusaale ahaan ka bixiyo waxa waaye yani markii la isticmaalo greenhouse gaska waa barnaamijka la isticmaalo oo mataqaana productionka loo isticmaalo, warshadii loo isticmaalo oo mataqaana waa in laga guuro tamartan energy badnaayo hawada yani ayada consume garaysa. markay consume garaysa markaas hadhow temperature ay sababaysaa. temperature-kii markuu ziyaado waxay dib ugu soo noqonaysaa haddana dalagii ku soo noqonaysaa. dalagii temperature-ki markuu kor u kaco, dalag yieldiga ama wixii laga soo kasbanayo oo laga soo beerashadii soo go-ayaa yaraanayo, all the way saasay u soconaya. marka inta badan waxaa lagu cabiraa marka climate-ka isbeddelkiisa waxaa lagu cabiraa yani heerkulka, mataqaana greenhouse gaseska, carbon emissionska all the way. marka waxaan isleeyahay cimiladu horta sidaasay marka koowaad u samaysan tahay problemkeeda u samaysan yahay. kadib marka siduu agriculture-ki u saameynaya, marka agriculture-ka wuxuu u saameynayaa ama waxyaabaha aan dhahno mataqaana dalaga cropska dhahna aniga inta badan moogtaa luuqadii wax lagu qorayay waa English waay. marka maxadka hadirtan wax badan uu ka study garay areadaas oo qaarna publicationkeeda ay soo bixin, qaarna hadirtan ay wadada kusoo jiraan. marka haddaa fiirisid yani sida uu u saameeyey tusaale ahaan Africa haddaan kasoo bilaawno, waxaa la yiraahdaa Africa oo sub-Saharan Africa oo yani wadamada ka hooseeyo saxaraha, yani dadka ugu faqrisan ku nool waxaa lagu qiyaasaa almost mataqaana 400 milyan oo ku nool less than 1.25 oona ku tiirsan haddana agriculture-ki ama mataqaana beerihii. sidaas tahay beeraha ku tiirsan hada cilmi baarisidii laga sameeyay waxaa la ogaaday marka tusaale ahaan maiska oo kaleeto ama waxa loo yaqaano galeyda kaleeto. galeyda yani temperature-keeda ilaa waxay ku survive garayn kartaa, cilmi baarisyo badan lagu ogaaday waxaa waaye ilaa 29 degree centigrade, 9 degree centigrade ilaa laga gaarayo it can survive. halkaas wixii ka dambeeya 1% haddii ziyaado ama boqolkiiba hal hadduu ziyaado waxay luus garaynaysaa ama ay luminaysaa wax soo saaristii in gaaraysa 8.4. dadka qaar waxay gaarsiiyeen cilmi baarisyada qaar waxay gaarsiiyeen
mataqaanaa waxay gaarsiiyeen ilaa 10 marka waa deegaanka laga sameynaya mar walba ay ku xiran tahay ay ku kala duwan yihiin taas markii laga yimaado haddana dhanka kale markaa fiirisid wheatka ama waxa loo yaqaan qamadiga asagana sub-Saharan Africa waxyaabaha ku tiirsan yahay ay ka mid tahay marka maadaama ku tiirsan yahay asagana climate-ka ama mataqaana cimilada isbedelaya ama temperature-ka kor u kacayo haddaa si kale u yirahdaa Soomaaliya yani ku heer kulka oo kor u kacayo wuxuu yareynayaa biyihii lagu waraabin lahaa qamadiga in ka badan marka photosynthesis-ka uu ku sameysanayo cuntadiisa uu dhir walba cuntay sameysata maadada cagaarisay sameysata intaas in ka badan markay ku dhacdo marka wuxuu saameyn ku yeelanaya yani dhirtii uu saameyn ku yeelanaya wax soo saarkii uu saameyn ku yeelanaya mirihii kasoo go-ayo saameyn ku yeelanaya marka ayada laftirkeeda meelaha uu saameeyay ka mid tahay yani East Africa saas uu saameeyay yani Sub-Saharan Africa saas uu saameeyay East Africa saas uu saameynaa ilaa Soomaaliya laga imaado marka sidaad arkaysid marka laba qodob ka dhalatay marka isbedelka cimilada labada qodob oo ka dhalatay waxa waaye waa ama in ay dhacdo abaar daran inay dhacdo oo yani xoolihii xaalufisa oo dalagii xaalufisa oo mataqaanaa xaalufisa bini aadankii yani nafsadiisii mataqaana ayada laftirkeeda dhaawac leh oo dhibaataysan oo sababta inay dadkii qaxaan oo waxaas oo dhan ay imaanayaan taas markay imaato marka waxay marka saameyn ku yeelatay noloshii qofkii caadiga ahaa oo la macaamilay sida kale tay ayadana saameynta ay u imaan karto temperature-ka hadduu isbedelo ama yani xilligii roobabka ay imaanaya isbedelaan waxa kaleeto imaanaya floods daadadkii marka si lamida sidii oo mataqaana abaarta ay u saameysay ay u saameynaysaa oo hantiya baabi'inaysaa yani mataqaana dalagii abuurnaayeel ay baabi'inaysaa all the way marka saas ay u soconaysaa waa hagaag Soomaalidu inta badan dalagyada ay beerato waxa u badan kuwa aan ku tiirsan wabiyada ee roobka ku tiirsan diyaa halahan galeyda diyaa halahan misigada iyo wixii la midka ah kuwaasi ma saameyn karaan isbedelka cimiladu aad iyo aad ustaad waa sax markaa fiirisid Soomaalida waxay ku xisaabtantaa xilli roobaadka marka beeraha lagu waraabiyo biyaha mataqaanaa roobka ku yimaado waxay aad vulnerable ugu yihiin ama ay u dabacsan yihiin u jilicsan yihiin climate-ka ama mataqaanaa cimilada isbedelkeeda inuu saameeyo waayo sababtoo roobka xilligii lagu xisaabtamayo hadduu imaan waayo oo ay u diyaarsanayd dhirta yani mataqaanaa inta loo diyaariyey ninka beerta sii fashay wixii uu ku shubtay mataqaanaa uu geliyey wax qarash badan geliyey hadduu roobka imaan waayo waayo climate change waxa asalka waxa waaye variation of the rain macnaha waxa isbedelayo xilliga roobka imaanayo taas waxay saameyn ku yeelanaya marka qofkii plankiisa inay qalado xilligan gugiya imaan lahaa waxa u diyaar garooday mataqaanaa waxa dalagii dhulka ku beertay waxa rabtaa in roobka markuu da'o soo baxo biyo way ka wareegeen xilli aadan ku xisaabtamaynin oo markaas roobkii wax ku beernay aan ahayn roob imaanay xilli waxna aysan ku beernayn ama adigoo ku beernaa xilligii go'itaanka aan la gaarin roob xoogan imaanaya intii ku beerneed oo ka baabi'inaya marka climate-ka ama mataqaanaa cimiladu mar walbaba waxa waaye rain feed-ka waxa la dhaho mataqaanaa ama rain irrigated mataqaanaa farmska aad u saameeya waxa Soomaalidu 80% dhulka Soomaaliyeed ama dhulka Soomaaliya jamhuuriyadda aan ka hadlo waxa uu khibrad u yeeshay isbedelka cimilada ifan caasimada aan ku noolnahay suurtagal ma tahay in dalagyada aan ku tiirsan wabiyadu iyaguna ay khibrad u yeeshaan isbedelka cimilada sida darteedna looga baaqsado in meeshii ay ka baxaan dalagyadii definitely caalamka maanta yani mataqaanaa si walba oo suuragal ah oo mataqaanaa lagu badbaadin karo dalagii la isticmaalaya caalamka wuxuu gartay in climate-ka uu saameyn ballaaran uu ku leeyahay yani mataqaanaa dalagyadii soo baxayay dhibaatada u geysanaya la daraaseeyay kadib waxaa la yiraahdaa bal hortan iyo dhibaatadan maadaama ay jirto oo yani aanan laga fursanaynin xalka maxaa waxaa la soo saaray formula la dhaho smart farming يعني سمارت فارمينج كما maxaa loola jeedaa smart farm waxaa loola jeedaa si caqli ku dhisan in wax loo beerto marka si caqli ku dhisan marka wax loo beeranayo marka waxaa la sameynayaa kow tusaale ahaan dadka hadirtaan caalamka horumaray technology ayda isticmaalaan haddii laga soo tago laakiin hadirtaan anaga maxaan samaysan karnaa sideen ula qabsan karnaa isbedelkan cimilada maadaama khibradeeda yeelanay isbedelkan la imaan karna maxaa waxa waaye
in aan sameyno biyihii inaan ka faa'iidaysano. Sometimes roobka ha isbedelaan, biyo badan oo daadada imaaday, inaan mataqaanaa dams waaweyn qodano, meelo biyaha lagu kaydiyo la sameeyo, biyihii markaas badnaa in la kaydsado. markii la kaydsado dib waxaa loo isticmaali karaa for irrigation purpose, oo yani in dib mataqaanaa loogu waraabiyo mataqaanaa beerihii. Then taas waa mataqaanaa waa meel waa u diyaargaroobitaas, waa u diyaargaroobid. waa sax. midda labaad oo loola qabsan karo yani mataqaanaa climate-ka maadaama uu sidan mataqaanaa mar walba uu isku bedelaayana waxay noqonaysaa caalamkii maanta wuu hormaraya, waxaa la sameynayaa waxaa la controlaya temperature-ka ay u baahan tahay greenhouse kaas haddaad ka hadalna oo lagu cabiro mataqaanaa temperature. waxaa jirtaan jiray greenhouse, waxaa jirtaan hata xamar kusoo badanayo oo mataqaanaa in lagu xirayaa wax lagu beero, waxbaa lagu beerayaa, temperature-ka u baahan tahay la siinayaa, inta kaleeta laga ilaalinaya, waa yani saas ma fahan. marka anagana waxaan u baahannahay laftirkeena Soomaalida waxay beerato waxaa la dhahaa subsidy, waxaan qutliyomka beerana anaga maxaa qofku cunaa bakaalo ku shubanaya daasad ma la rabo. marka waxaa la rabaa si loo beero mataqaanaa bulk of mataqaanaa export noqon karo oo wax walba noqon karo, in waxaa loo baahan yahay mataqaanaa baaris micnaha beeristeen aan wax badan ka bedelno siday la tahay. ma jira markaa dalagyo aad ku talinayso oo ah oo adkeysan kara isbedelka cimiladu u diyaarsan dhulka annaga aan ku noolnahay ee ah cimiladiisu aysan fadhin, dalagyo ku habboon oo aad ku tali lahayd in maanta la beerto ma jiraan? aniga horta dalagyadan haysano inta badan aan beerano waxaa waaye oo aadka aan u beerano waxaa waaye waa sida galleyda, masagada, mataqaanaa qamadiga iyo wixii la halmaalo, mooska. marka climate mataqaanaa variationka waxaa aad ugu adkeysan kara laba ilaa hadeertaan stadiyada inta lagu ogaaday waxaa waaye waa masagada iyo galleyda. masagada iyo galleyda temperaturekaas aad isku bedelaya inta badan inay survive garayso ay u badan tahay. markaa fiirisid marka laakiin yani qamadigo kaleeto uu u jilicsan yahay, mooski uu u jilicsan yahay, mataqaanaa negative impact ku leeyahay mar walba temperatureka siyaado impactiga uu ku yeelana ama sida u saameynayo bananagii ama mataqaanaa wheatkii iyo mataqaanaa soybeankii wixii oo dhan mataqaanaa cambuuladii iyo mafahant aad u badan tahay. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markaan bal haddii aan intaas kaga gudubno cunooyinka ama waxyaaba qudur-daruuriga ah ee aan beeranno, waxaa jira khudaar, ha ahaato midda khudradda loo yaqaana ama midda in la kariyo u baahan ama midda xiliyadeedu iyadoo cayrinka ah ama iyadoo geed ku bislaataba. suurtagalnimadu ma jiraan suurtagalnimo ah in dalagyo qaar ay meeshii ka baxaan la waayo guud ahaantood, haddii ahaaleed cambaha, haddii ahaaleed qaraha, inuu meeshii ka baxo oo gebi ahaantiis la waayo iyadoo sabab u tahay isbedelka cimilada? aad iyo aad sidaad waa mahadsan tahay. dalagyada horta iyo mataqaanaa weysmadooda iyo mataqaanaa nimanka agriculture-ka bataani agricultural economist aanayo dhankaasa kasoo gelaya. ragga agriculture-ka oo yani si saxa u bartay oo garan kara shaygan ma lumaya, mataqaanaa mar labaad ma la beeri karaa dalagan, hal mar haddii la beero mar labaad beeris ma leeyahay, waxaas oo dhan ayaga aad mataqaanaa u taqaso. laakiin ani waxaan ku darayaa sida caalamka dhan laysla ogyahay horta dalaga waxaa ilaaliya dowladda ilaaliso oo standardkeeda ilaaliso oo dhehaysa shaygan haddii la beero mar labaad shaygii ka soo baxay ma lasii beeran karaa, ma la beeran kara miya, waa la ilaashadaa. haddii dadku aysan sidii la rabay micnaha dowlad ugu ilaalisa aysan haynin, hadda intaan aniga information ka hayo mar walbaba dalagyada aan anaga beeranayno oo ay beeranayso mataqaanaa yani beeraleyda ay beeranayna waxaa u keena hay-adaha mataqaana qaramada midoobay u qaabilsan cuntada adduunka FAO iyo mataqaanaa WFP. marka meelo badan markaa soo mari kara. marka waxaa laga yaabaa marka dalagan adiga lagu keenayo ninkan beeraleyda dalaga loo keena beeraa la yiraahdo waa lagu caawiyey, laakiin standardkeeda cid hubisay ma lahan. haddii waxaa laga yaabaa dalagaas hal mar haddii la beero second term ama mar labaad inaan la beeri karin oo shaygii ka soo baxay waa la isticmaali karaa cunitaan ahaan ama consumption purpose waa loo isticmaali karaa, laakiin haddii lagu celiyo dhulka waxaa laga yaabaa inuusan soo bixin laga yaabaa. wahagaag warbixin waxaa jirtay soo daabacday UNAOJ oo ay ku leedahay Soomaalidu dalagyada ay beerato
haddii ahaa lahayd kuwa hadda aan soo sheegnay oo galleyda iyo misigada iyo kuwa khudaartaba iyo sidoo kale xoolo dhaqatadaba waxaa si baan u saameeyey isbeddelka cimiladu waxaa soo food saartay cunno yari waxay halis ugu jiraan in macluul noqdaan ku muuqataa taas adiga sidaad aad u mahadsan tahay xaqiiqatan waa wax iska cad dad meesha ugu badan oo climate change-ga caalamka saameeyey ee haddana aanan ka faa'iidaysan aniga Africa markaan joogno gaar ahaan sub-Saharan African countries gaar ahaan Soomaaliya anaga ma lihin warshado waaweyn oo yani mataqaanaa hawada wasaqeeya oo pollution sii daaya anaga climate change-gan yani mataqaanaa cimilada saan u galaya hawadii oo sea levelka kor u qaadayo oo mataqaanaa variation of rainska keenayo oo mataqaanaa floodska tirada badan keenayo oo droughtska keenayo anaga wax contribution kuma lihin oo ama contributionkeenu wuxuu ka yaryahay 0.0 waa sax waa 0.03 waaye 03 waaye siduu sheegay Antonio Guterres okay marka anagoo iyadoo sidaas ay tahay anagoo contributionkeenu sidaas uu u yaryahay haddana dadka ugu badan ee u rafaadaya ee dhibanaha anaga marka caalamka waxaa jirto carbon tax waxa la dhaho oo yani dadka wasaqda yani in loogu talagala jirta caalamka standard a jiro standardka wadan hebel wuxuu hawada wasaqeyn karaa in intaas leeg oo pollution ku sii day karaa haddii intaas in ka badan oo loo qoondeeyay intaas in ka badan hadduu ku daayo waa lagu canshuraa magdhow laga qaadaa magdhowgaas waxaa la siiya wadankii laga isticmaaloona ka faa'iidaysanin tusaale ahaan marka Soomaaliya oo kale hadeertan waxay xaq u lahayd mataqaanaa sidaas oo kaleeto inkastoo weli ay dadkii beesha caalamka ay garab taagan tahay oo si ahaan la dhihi karo warkeeda mataqaanaa way caawinaysaa weli oo waxa waaye dadkii cash voucher la siinaya waxaa la samaynayaa any way possible oo lagu badbaadin kara nafsadooda wahagaag sida ay qabaan saynis yahano iyo khubarada ku takhasusay cunnada waxa ay muujiyeen jahawareerka u sababay isbeddelka cimiladu inuu baabi'iyey dalagyo qaar taa xagga iska dhig waxaa ka daran ay leeyihiin in cunnada qaar sunteedu ay siyaaday tusaale waxay soo qaadanaya galleyda maxaa ka runa waxaas actually markaa fiirisid galleyda dadka dhaqaatiirta ah ee ku takhasusay beeraha iyo dalagyada iyo siday mataqaanaa ay u saameeyaan mataqaanaa waayo galleyda marka la beerayo dhulkii waxa waaye marka horeeto waa in la bacrimiyo waaye markuu soo baxo bakal in la geliyo waaye dhaqaatiirta yani dadka dhaqaatiirta ee ku takhasusay cudurrada mataqaanaa dalaga ama cudurrada cropska qaarkood waxay leeyihiin bakalkaas la gelinayo wuu hurayaa huritaankaas waxaa ka dhalanayo mataqaanaa in caafimaad darro oo cudurro laga qaado oo dadkii ay ku sumoobaan markay isticmaalaan yes argumenti taagan waaye waxaa aad uga doora dadka agriculture backgroundka ka imaaday oo dadka takhasuskooda ay tahay laakiin ka anaga ahaan yani climate ahaan Institute of Climate and Environment waxyaabaha uu study gareyn doona qeybay ka ahaanaysaa especially anaga waxa waaye waxaan studyyadeena ku base gareynaa time series data oo mataqaanaa aan kasoo qaadanayno meelaha lagu kaydiyo ma garanaysaa xogtii ayadoo sanado badana kadib aan waxaan fiirinaa intan maxay saamaysay kadibna waxaan leenahay marka maxaan yani dadkii aniga waxa waaye shaqadeena waxa waaye action by research waaye waxaan samaynayno research aan ku samaynayna kadibna taladii aan soo jeedinayna taladii markaan soo jeedino marka waxaa la rabaa in advocacy loo sameeyo in mataqaanaa wasaaradihii ay ka faa'iidaystaan institutionadii mataqaanaa ka shaqeynaya sida hay-adaha intergovernmentalka oo UN ka mid yihiin iyo hay-adaha internationalka oo climateka iyo environmentka ka shaqeeya ka faa'iidaystaan marka waxaan is leeyahay si warkii kooban oo yani jawaabtaas ah waxaan is leeyahay yes waxbaa ka jiro in lagu samoobi karo because cimilada waxay sababeen aawadeed iyo mataqaanaa ama si aanan sidii saxda ahayd aanan loo bacriminin mataqaanaa caradii lagu abuurayay ama sida loo keydiyay oo kaleeto waxaas oo dhan inay dadkii ku samoobaan way ka imaan kartaa waa hagaag waxaad ka tirsan tahay macad ka shaqeeya deegaanka iyo isbeddelka cimilada background ahaan ama taariikhdaada iyo marka loo fiiriyo profilekaagu waxaad wax badan ka taqaanaa isbeddelka cimilada iyo deegaanka dabcan abaaraha joogtada ee keenaan isbeddelka cimiladu waxa ay huriyeen dhibaatooyin bini'aadanimo gaar ahaan sanadkii 2021 iyo kii xigay 2022 waxaa la soo wariyay xaalada bini'aadanimo aad u daran
kuwaas waxaa sababay inta ugu badan climate change ama isbeddelka cimilada wax loo yaqaano. haddii xaaladdu sidan kusii socoto maxaa kuu muuqda adiga? horta waxaa waaye anagoo mataqaanaaye haddana wixii jiray aanan iska indhatiraynin, haddana yaqiintii ilaahay iyo mataqaanaaye rajadii wanaagsaneed ee ilaahay xaggiisa inuu na caawiyo ahaydna kama tegeyno. oo marka ani waxay ila tahay horta ilaahay aa mar walba leenahay. taas markii laga yimaado waxaa muuqata halis weyn aa muuqato oo mataqaanaaye markaa fiirisid dadkii waxaa ku dhacayo internal immigration ku dhacayo, dadkii waxaa waaye waxay kasoo guurayaan deegaanadii loogu talagalay in la beerto, way kasoo barakacayaan sabab la xiriiro yani mataqaanaa cimilada dhibaatay keenta. deegaanadii ay kasoo barakacayaan waxay imaanayaan magaalooyinkii nolol kuma haystaan, magaalada ma wada qaadi karto. waxaa ka imaanaya meeshaas marka ayagii nolol fiican ma helayaan. magaalooyinka dadkii ugu soo horeeyey yani mataqaanaa oo qaraabo ahay oo mataqaanaa wixii ahay ee la noolaayeen yani noloshoodii ma iskabayso, oo waxay sababaysaa ayada laftirkeeda kuwii baarinka ay saareen laftirkooda inay la qoostaan. deegaanadii loo baahnaay in la beerto oo dowladdu ay subsidy meeshooda ku siiso oo mataqaanaa inay weli waxaa u malaysaa dowladnimadii aysan halkaas noo gaarin oo aan wadadeeda ku jirno ama dadaalkeedii lagu jiro. waxaa u malaysaa marka mar walbaba halistaas yani mataqaanaa waa mid taagan waaye oo khatarteeda leh. markii wixii cuntada shortage of mataqaanaa markuu dhaco wixii la cunaayay oo soo saaristeeda oo ka baxo meeshii caalamka maanta aad dirtaan waa aragtaa dagaalka ka socda Russia iyo Ukraine iyo markaa aragtid qamadigi dhamaay laga keeni jiray Ukraine laga keeni jiray uu saameeyay. waxaad dareemaysaa gaaskii laga keenaya saameeyay, maciishadii Soomaaliya ka dareemaysaa. caalamka wuxuu iska noqday globalize oo mataqaanaa ku jira marka way is saameynayaan. marka haddaana loo diyaar garoobin oo dadka Soomaaliyeed iyo dowladeeda aysan u diyaar garoobin isbedelkan cimilada iyo dadkan magaalooyinka kasoo barakacayo iyo mataqaanaa waxaan oo dhan, oo sometimes waxaa isdhehaysaa dadkan uma baahna in mararka qaar aid bis uma baahna, waxay u baahan yihiin yani infrastructure in loo sameeyo ay wax ku samaysan karaan. yani hanaankii in loo jeexo loo engineer gareeyo ay wax ku beeran lahaayeen, ula macaamili lahaayeen climate change-gan yani cimiladan isbedelaysa ay ula macaamili lahaayeen. yani khatarahan sidii loo yareyn lahay dowladdii bolosiyo kasoo saarto la implement gareeyo. waxaa u malaysaa meelaha ugu muhiimsan maantay ee Soomaaliya ku tiirsantahay 65% mataqaanaa GDP-geeda wuxuu ka imaadaa la dhahayo agriculture koon isku dhahayno livestock iyo mataqaanaa wixii kasoo micnaha xoolihii iyo beerihii iyo badii inta laga helayo la isku dhahay maadaama naga soo galayaan. GDP-gana 65 markuu ka yahay waxaa la rabay wasaaradda beeraha oo kaleeto inay noqoto wasaaradda ugu shaqada badan oo mar walba la maqlo oo hawsha ugu badan qabato oo bulshada la shaqayso oo engagementgeeda badan tahay. haddana yani dabcan dadaal uma yaro oo ayagu intaas ayagu ogay haddana mataqaanaa tabartii halkaas la dhaafi weyso kuma eedeynayno, laakiin in dadaalkii meeshii laga sii mataqaanaa daba jibaar waa muhiim si khatarahan badan ee yani mataqaanaa caalamka isla arko oo anaga aan aragno qof walba uu arkayo loo yareeyo. waa hagaag. waxaan rabaa su-aasha ugu dambaysa intaan ku weydiin adoo soo koobaya. muqdisho daafeheeda waxaa ku yaala xiriir barakacyaal ah, dhammaantood waxay ka yimaadeen gobollo wax laga beerto. dadkaas maxaa kula talineed? horta dadkaas tala ayaga oo hadirtaan toos ay ugu baahan yihiin ma jirte. dowladdan wax kula talinaya oo looga rabo inay dadkaas ay maamusho. dowladda waxay ku leeyihiin dadka shacabka ee soo barakacay ee abaaruhu soo barakiciyeen siyaasadii dib u dejin loogu samayn lahaa ayada laga rabaa. waxaa laga rabaa wiilkooda iyo gabadhooda iyo mataqaanaa iyo hooyadooda, hooyadii meesha ku dhali lahayd inay deegaankooda ku helaan, wiilkooda iyo gabadhooda inay waxbarasho meeshooda ku helaan, wadooyinka ay isticmaali lahaayeen inay dowladda ka helaan, in yani mataqaanaa isbedelkan cimilada marna floodska sababayo daadadka sababayo, marna sababayo mataqaanaa abaaraha sababayo. ayadaa laga rabaa dowladda waxaa laga rabaa inay siyaasadeeda la imaato oo ay markii biyo badan ay jiraanna ay biyihii kaydiso oo ay la imaato kaydad biyo ah oo mataqaanaa ay kula mataqaanaa dhiilgaray karto biyahaas tirada badan oo dalagyada goynayo. ayada dowladda wixii inay hagaajiso. dadkan mar walbaba ayaga waxay leeyihiin way daba kacayaan. waxa waaye awrta ratiya hogaamiya
anaga dhaqan geelaya leenahay dabcan or walbaba macnaha markay reer yani inay guuraan rabaan ama mataqaana dhan ay ka imaadeen orta waa la isku daba xiraa xabaan u shaqo qabtaa hoggaan loo qabtaa marka dowladda ha toosiso dowladda waxa laga rabaa inay toosiso dadkana waxa laga rabaa inay wacyi yeeshaan oo aysan ku qancin nin mataqaana Soomaaliya inta la beeri karo hectares oo cropska laga soo saari karo waxa lagu qiyaasaa 400 oo kun oo hectare lagu qiyaasaa ma fahan waa almost close to 0.4 million hectare lagu qiyaasaa intaas waxaa la rabaa marka haddaysan ahayn waa ka agdhowdaa intaas waxaa la rabaa marka dadku inay gartaan adigoo wax soo saaran kara suuqa geyn kara gadan kara dib u noqon karo oo ganacsi iyo beecsharo samayn karo ma jirto sabab aad ku dooratid inaad qaxooti ku ahaatid magaalooyin korkood marka waxaan rajaynayaa ayagana intooda caqliga leh inay garato inta oo ay sameeyaan ayagana mataqaana maadaama aysan jirin ama ay yar tahay saameynta dowladda ay ku yeelan karto noloshooda in ayaga noloshooda qaabeystaan oo ay sameeyaan ururo oo bulsho ah ururo bulsho jiro oo meel walba ka jiro yani marka in ururo bulsho oo beeraha iyo mataqaana sida loola macaamilayo climate-ka iyo tusaale ahaan dartan institute-ya dartan samaysmaayo Soomaaliya oo kamid yahay dartan institute-keena Institute of Climate and Environment simad ka tirsan waxa waaye uu tababari karaa sida loola macaamilo yani early warning mataqaana department ya la sameyn doona hadirtaan branch kamid ah mataqaana institute-ka oo early warning soo deegi doonto dhihi doonto waxa waa meel hebel biyaha kusoo wajahan meel hebel abaara kusoo wajahan yani forecasting la sameynaa oo si saadaalna dadka in looga faa'iideeyo haday marka dadkaas leeyihiin ururo haday sameystaan bulsho waxa dhici karta ururadii bulsho in loo train gareeyo kadibna ayaga ay fariinta gudbiyaan maadaama ay yaqaanaan deegaankii iyo dhulkii iyo sidoo isku bedelayo dadkana ay aaminsan yihiin in ayaga training loo qabanayo dan trainingka qayb uu ka qaadan karaa laftirkeeda si waxaas ayagana ay noqon lahaayeen aad u mahadsantahay ustaad dhaqane roob la xalane dabcan waxaan rajaynayaa waqtiguna ku halaya awgeed inaan halka kusoo afmeeri doono guud ahaan astaan iyo barnaamijka nabad wuxuu kaaga mahadcelinaya waqtiga qaaliga ah daawadayaal waxaa intaas inooga eeg barnaamijka nabad ee aad ka daawanayseen telefishinka astaan barnaamijka maanta waxaa martay waa ustaad dhaqane roob la xalane oo ka tirsan macadka deegaanka iyo cimilada ee jaamacadda simad tan iyo inta aynu kulmi doon barnaamij caynkaana qala sida iyo amaana Allah